بسم الله ربي يسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدنالي ومروين كسودو هذا كورسدني كويك بوك انتبراي سولوشنز. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan noqdo macalinkaaga ama barahaaga maadadani ama koorsadani lagu magacaabo QuickBook Desktop. Marka hore waxaan rabaa qaybtani ama casharkani kooban maantay inaan ku qaadano hordhac ku saabsan koorsadani iyo waxa ay tahay. Ugu horeyn koorsada magaceedu waa QuickBook Desktop. QuickBook waxa uu u qaybsamaa laba qaybood ayaa ugu muhiimsan. waa qayb desktop-ka ah aad u isticmaali karto qaab offline ah iyo weliba qayb oo lagu magacaabo QuickBook Online lagu magacaabo waaye iyaduna as online ahaan aad u isticmaali karto. Labadaasi qaybood ayaa QuickBook loo qeybiyaa. Marka koorsadani waxaan ku baran doonaa QuickBook Desktop-ka ayaan ku baran doonaa. QuickBook-iska weliba wuxuu leeyahay dhowr version ayuu leeyahay ama dhowr qaybood ayuu u qaybsamaa marka laga hadlayo. Marka waxa uu u qaybsamaa QuickBook saddex qaybood. Saddexdaasi qaybood waxa ay kala yihiin: kow waa QuickBook Pro, labo waa QuickBook Enterprise, saddexna waa QuickBook Premier. Marka saddexdaasi qaybood ayuu u qaybsamaa QuickBook desktop-ka ah, balse anagu waxaan ku baran doonaa koorsadeeni midka looga isticmaalka badan yahay uguna awoodda badan marka laga hadlayo QuickBook isticmaalkiisa qeybihiisa ama saddexdaasi qaybood aan hadda aan kor ku soo xusnay, waana midda lagu magacaabo QuickBook Enterprise Solutions for Desktop. midkaasi ayaanu isticmaali doonaa insha allahu tacaala. Waxyaabaha aan ku baran doono marka ama awoodda uuna siinayo QuickBook Enterprise-ka ah waxaa ka mid ah marka inaan samayn karno wax alaale wixii aan u baahano kambanigeena, haddii ay tahay marka payroll paymentiga, haddii ay tahay marka saleska, haddii ay tahay marka dhammaan waxyaabaha la xiriira kambaniga xogtiisa ayaan marka si fudud aan u samaysan karnaa. haddii ay tahay marka inventory-ga inaan soo iibsano, dhammaan qodobadaasi ayaan marka aan ku baran doonaa insha allahu tacaala. intaas keliya maahane ugu horeyn marka waxaan baran doonaa marka hore horta sidii aan ula soo degi lahayn barnaamijka QuickBook qaybtiisa marka oo bilaashka ah aan u isticmaali lahayn ayaan insha allahu tacaala aan ku baran doonaa. kadib sidii kambanigeena aan u dhisan lahayn ayaan ku baran doonaa. sidii aan u baran lahayn menuskani halkan idinka muuqdo ayaan step by step aan u arki doonaa. icon barkani ayaan arki doonaa sida customization looga sameeyo, sidii adiga aad rabto aad ka yeelan karto. waxaan arki doonaa centerska uu leeyahay QuickBook ayaan arki doonaa. waxaan arki doonaa sidoo kale qeybaha uu u qaybsamo ama main brancheska uu leeyahay QuickBook ilaa iyo 5 qeybood ayaan ku baran doonaa. home page-ka iyo insights-ka waxa ay kala yihiin ayaan baran doonaa. qaybtaasi waa insights hadda aan joogno, qaybtanina waa home page-ka. sidoo kale waxaan arki doonaa sida customer loo abuuro, sida customerka deynta loo siiyo, sida customer deyn loo qaato. dhammaan qodobadaasi aan ku baran doonaa. sidoo kale waxaan arki doonaa sida inventory loo abuuro, sida sidoo kale inventory loo soo iibsado. waxaan ku baran doonaa sida vendor aan ula tacaamuli lahayn ayaan ku baran doonaa, iyo qeybahaasi qeybo ka badan insha allahu tacaala ayaan ku baran doonaa koorsadeen. koorsadani waxay ka kooban tahay ilaa iyo 9 jabtar ayay ka kooban tahay. 9kaasi jabtar ay ka kooban tahay koorsadaasi marka ugu yaraan midkii casharadiisa ugu yar wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 4 cashar ama 5 cashar ayuu ka kooban yahay. marka koorsadani marka koorso aad iyo aad u qiimo badan waaye, oona midda ugu weyn oo marka la isticmaalo ay tahay marka laga hadlayo ganacsiyada yaryar, kuwa waaweyn iyo kuwa dhexdhexaadka ah. intuba barnaamijka keliya xisaabaadka loo isticmaalo keliya maahane, balse waxaan ula jeedaa barnaamijka keliya ugu awoodda badan waaye QuickBook dhinaca iyo xisaabaadka barnaamijyada loo isticmaalo waa midkaasi. marka koorsadani ayaad ku baran doontaa dhammaan waxyaabahaasi ayagoo in details ah oo marka step by step ah oo aan shirkad bilow ilaa iyo dhammaad aan isla dhisi doono ayaan ku baran doonaa. waxaan rajaynayaa marka casharka maanta hordhac inoo ah inaan isla fahanay ayaan rajaynaya. waxaan idin leeyahay marka soo dhowaada. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.